إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni u sheekeeya caruurta. qisadana maanta waxay ku saabsan tahay qisatu daati alwishaax. هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. qisadani runtii waa qiso aad u cajiib badan, waxayna ku saabsan tahay haweeney saxaabiyad ahayd oo aad u iman jirtay guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay la sheekaysan jirtay ummulmu'miniin caaisha radiallahu canha. marka waxaa jiray hadal ay markastoo ay baxayso ay dhihi jirtay. hadalkaas wuxuu ahaa: wa yowma alwishaaxi min acaajiibi rabbina alaa inahu min baldati alkufri anjaani. hadalkaas markastoo ay sii dhammaysato warkeeda ayay dhihi jirtay. marka caaisha radiallahu canha way la yaabtay hadalkan ay haweeneydan markasto dhahayso. way weydiisay, waxay tiri hadalkan aad maalin kasta dhahdid waa maxay nicmada ilaahay kuu galay oo aad maalin kasta xasuusanaysid? ilaano hadalkeeda waxaa laga dhex fahmayaa waa maalin alla subxana watacaala nicmo weyn u galay oo culeys badan ka dulqaaday inay xasuusanaysa hadalkeeda laga fahmaya. markii ay caaisha radiallahu canha su-aasha weydiisay ayay haweeneydii uga sheekaysay hadalkan ay dhihi jirtay qisada uu ku yimid. waxay tiri waxaan u shaqayn jiray reer carabta ka mid ah, khaadimad bay u ahayd, waana intaysan soo islaamin ka hor. marka iyadoo reerkii la joogta ayaa gabar reerka ka mid ah waxay lahayd wax sida silsilada haweenka ay xirtaan oo kale ah oo kalarkiisana gaduud yahay ayay lahayd gabadhu. marka meel ayay dhigatay, kadibna dafa ayaa aragtay oo maadaama kalarkiisu uu gaduud yahay, dafadii waxay u qaadatay inuu hilib yahay, way soo degatay way qaadatay. marka gabadhii meeshii dhigatay ka raadisay way weysay, reerkii dhan baa raadiyey, waa la waayey. markaasa waxaa lagu tuhmay haweeneydii shaqaalada ahayd inay ayada xadday ayaa lagu tuhmay. markaasaa la ihanaystay oo la yiraahdaa xadday, oo maaragtay la bilaabay in la fatasho oo si sharaf daraa loo fatashay. yacni ay dareentay maaragtay in la duleysanayo, la ihaanaysanayo, ayadoo marka dhiban oo maaragtay dareemaysa ihaano iyo dhibaato badan dareemaysa, ayaa ilaahay subxana watacaala naxariistiisa wuxuu qadaray in ay dafadii soo laabato oo wixii ay qaaday ay maaragtay soo riddo, intay korkooda soo istaagto ay maaragtay soo riddo. marka waxay ku tiri maaragtay waatana waxa aad aniga igu eedeynayseen oo aad maaragtay igu tuhmayseen, anigoo beri ka ah aad igu tuhmayseen. intaa markay dhacday haweeneydii way ka soo tagtay reerkii, waxay soo aaday magaalada madiina, wayna islaamtay. sida hadda ay soo sheegnaan waxay maaragtay aad u iman jirtay guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay la sheekaysan jirtay ummulmu'miniin caaisha radiallahu canha. halka ay sheekada noogu eg tahay. sheekadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa in laga habboon yahay in qofku uu dadka iska tuhmo asagoo aanan maaragtay hubin ama daliil u haysanin. waxaa dhici karta in wax adiga aad lahayd in ay kaa lumaan ama ay kaa halaabaan. marka aad istiraahdo qof mucayan ama qofka asaga kaa dhumiyey ama kaa qaatay ama kaa halayay, laakiin adigoonan hubin oo maaragtay daliil u haysanin inaadan qofkii isaga tuhmin oo qof beri ah aadan markaasaas ku dulminin. arrintaas in maaragtay arrin aad lasaga ilaaliyo loo baahan yahay inay tahay ayaan ka faa'iidaysanaynaa. waxaa kaloo ka faa'iidaysanaynaa in dadka shaqaalaha aan la dulminin, ama ha noqdaan haweenka guriga ka shaqaynaya oo cuntadii kuu karinaya ama dharkii kuu dhaqaya ama gurigii kuu nadiifinaya, ama nin xamaali oo maaragtay alaab culus oodan qaadi karin kuu qaadaya, ama shaqo kaloo muhiima kuu qabanaya, inaan la dulminin.
inaan lagu qaylinin, in qaab naxariis darro ah aanan loola dhaqmin. Arrimahaasoo dhan waa arrimo muhiim ah. Yacni qofka muslimkaana laga rabo in uu maaragtay dadkaas shaqada u qabanayo oo asaga wax badan u baahan yahay u sameynaya inuu maaragtay ku qadariyo shaqadooda, uuna maxay ahayd uga mahad celiyo, laakiin uusan ku dhibin ama ku dulminin ama uusan dhibaato kale ugu geysanin. Mahadsanidin. La socda sheekooyinka soo socda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار. أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار.